ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee danab oo kaashanaya kuwa darawishta maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa subaxnimada hore saaka ururnimada ay howlgal ka dhanaa maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay ka bilaabeen deegaanada ku teesan jinka wabiga Jubba ee gobolka Jubbada Hoose deegaanadaas ayaa waxa gacanta ku hayay maleeshiyaadka ururka al-shabaab hasiye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka warhelay xogta maleeshiyaadka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo isku urursanaya deegaan hoostaga gobolka Jubbada Hoose ayaa qaaday howlgal qorsheysan iyaduna dhammaanba deegaanadaasi ay si buuxda gacanta ugu dhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo markaasi kaashanaya kuwa darawishta maamul goboleedka Jubbaland xogaha hordhaca ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaadkii ururka al-shabaab ee ku sugnaa deegaanadaasi ay dhammaantoodba iskaga baxeen kadib markii ay ka warheleen in ay ku soo wajahan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa darawishta maamul goboleedka Jubbaland waxaana dhammaanba deegaanadaasi iminka gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoona ay dhammaanba iskaga baxeen maleeshiyaadkii ururka al-shabaab oo in muddo deegaanadaasi gacanta ku hayay howlgalkan si wada jira u fuliyeen ciidamada danab iyo sidoo kale kuwa darawishta maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo maalintii shalay ahayd deegaanadaasi uu ka dhacay dagaal xooggan oo isku hor yimaadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaadka ururka al-shabaab iyadoo dagaalkaasi jab xooggan lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka ururka al-shabaab isla markaana lagu burburiyay fariisimihii ay ku lahaayeen deegaanadaasi saraakiisha hogaaminaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay wacd ku mareen in aysan joojin doonin howlgalkan ka dhanka maleeshiyaadka ururka al-shabaab ilaa ma inta ururka al-shabaab ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose